Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal. Qodobada warkayaga galabnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid shacabka degan ee keynta Mau oo baaq u diray madaxweynaha dalka. 3.9 milyan oo ay aruuriyeen Kenyaan Maka ku tegay baskeli. Akhbaaraadka dibadda ee warkayaga galabnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid dhegaystayaal. Ra'iisul Wasaare Khayre oo la kulmay Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo la kulmay James Swan. Fanaanad caan ah oo dhacdo aan la filayn ku geeriyootay iyadoo masraxa toos hees uga qaadaysa. Intaasi aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid qodobada warkayaga galabnimo kuwooda ugu waaweyn. Waa galabnimo Salaaso ah taariikhdan ay ku haastaysan tahay 3 bisha 9aad ee Sebtembar sanadka 2019. Galabnimadan waxaa idin waramaya anigoo Cabdiqafaar Habi ah. Iminkana ku soo dhawaada warkaasi faahfaahintiisa oo dhammaystiran. Qoysaska degan ee keynta Mau ee ismaamulka Narok ayaa madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ka codsaday inuu ku dadaalo sidii looga hortagi lahaa in sida ay hadalka u dhigeen loo geysto barakicin saameyn karta noloshooda. Waxay doonayaan inaan la dhaqan gelin go'aanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha deegaankaasi oo ah in dhowaan la bilaabayo wejiga labaad ee howlgallada keyntaasi looga saarayo dadka sida sharci darrada ah ku degay. Sidoo kale siyaasiyiinta gobolka Rift Valley ayaa si adag uga soo horjeestay qorshaha dowladda, waxayna sheegeen inayna marnaba suurtagal ahayn in laamaha ammaanka ay guda galaan waxa ay ugu yeereen barakicin dadweyne. Xildhibaanka deegaanka Belgad Nelson Kuweje ayaa carabka ku adkeeyey in dadka halkaasi degan ayna meelna u socon. Dhanka kale guddiga arrimaha deegaanka ee baarlamaanka dalka ayaa u yeeray wasiirka deegaanka Keriyago Tobiko si wax looga weydiiyo qorshe dowladeed oo muran dhaliyay. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda ay sheegtay inay bilaabayso wejiga labaad ee howlgallada keynta Mau ee ismaamulka Narok looga saarayo in ka badan 60,000 oo qof oo halkaasi degan. Guddoomiyaha guddiga arrimaha deegaanka golaha sharci dejinta Kereke Mbiuki ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in howlgallada qorshaysan aan si buuxda looga wada tashan. Wasiirka ayaa sidoo kale looga fadhiyaa inuu faahfaahin ka bixiyo guulaha ilaa iyo hadda laga gaaray wejiga labaad ee badbaadinta keynta Mau. Shacabka degan keynta Mau oo baaq u diraya madaxweynaha dalka ayaa waxaa hadalkoodii ka mid ahaa. Hatutoki Mau. Sisi si wageni Kenya na tutakaa Mau. Sisi si ya kubembeleza tena. Wale watoto ambao wanaenda shule katika sehemu ya Mau ni watoto kama watoto wa Tobiko. Na yeye ajaribu kutufurusha, sisi tunamwambia Mau hatuondoki leo, hatukuondoka jana na hatutawahi toka sehemu ya Mau. Afikirie vingine. 4 qof oo Kenyaan ah oo waddanka dib ugu soo laabtay kadib safar ay ku tageen magaalada Maka ee boqortooyada Sacuudi Carabiya iyagoo adeegsanaya baaskeli ayaa waxay sheegeen inay aruuriyeen dhaqaale gaaraya 3.9 milyan oo shilin. Lacagtan iyada ah ayaa loo adeegsan doonaa in loogu deeqo dhamaystirka daarta Al-Furqaan ee magaalada Namanga iyo in sidoo kale lagu kafaalo qaado caruur danyar ah. Dadkan safarka galay ayaa waxaa ka mid Maxamed Zahir, Cismaan Idris, Maxamed Salim iyo Anwar Mansuur. Hogaamiyaha kooxdan Master Zahir ayaa hoosta ka xariiqay in bartilmaameedsigooda uu ahaa inay aruuriyaan 5 milyan oo shilin balse aynan taasi ku guuleysan. Waxa uu sheegay in safarka ay galeen uu ahaa mid adag muhiimadiisa leh. Maalin kasta waxay soconayeen 100 kiiloomitir waxayna sii socdeen 35 maalmood halka 10 cisho ah. Marka la isku geeyo 4 qof ee Maka tagay dib ugu soo laabtay dalka
ayaa waxa ay qaateen 80 maalmood. Halka warkaasi dhegeystayaal uu idinkaga imaanayo waa raadiyaha KFM. Imikana akhbaaraadka dibadda. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa goordhow hoyga uu ka degan yahay magaalada Dhuusamareeb waxa uu kula kulmay guddoomiyaha guud ee Ahlusunna Macalin Maxamuud iyo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Kulankan oo ahaa mid albaabada u xirnaa ayaa looga hadlayay arrimaha dhismaha maamulka Galmudug iyo sidii madmadowga soo kala dhex galay Ahlusunna iyo dowladda federaalka meesha looga saari lahaa. Wararka ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha uu ka dalbaday hoggaanka Ahlusunna inay ka qayb qaataan dadaallada dib loogu dhisayo Galmudug loo dhan yahay. Hoggaanka Ahlusunna ayaa dhowaan sheegay inuu burburay heshiiskii dowladda, isla markaana ay dowladda uga baxday ballamaha. Hase ahaatee, wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in heshiiska ay la galeen Ahlusunna uusan waxba iska beddelin. Waxa uu soo bandhigay qodobadii ay kula heshiiyeen. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka Axmed Ciise Cawad ayaa kula kulmay magaalada Muqdisho wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ahna madaxa howlgalka kaalmaynta qaramada midoobay ee Soomaaliya ee mudane James Iswan, isaga oo kala hadlay iskaashiga u dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay loogu adeego Soomaalida. Waxaa kale oo isla falanqeeyeen xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadda iyo nabadgelyada dalka. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxa uu mar kale ku celiyay taageerada dalkiisa uu hayo dadaallada wakiilka gaarka ah iyo qorshaha howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Fanaanad u dhalatay waddanka Spain oo qaada heesaha loo yaqaano Popka ayaa geeriyootay kadib markii uu ku dhacay bululeer ku qarxay goob ay ka socotay munaasabad ay si toos ah uga heesaysay. Joanna Zen oo 30 jir ah ayaa xilligaasi ka qayb galaysay bandhig ay sameynayeen kooxda ay ka tirsan tahay oo lagu magacaabo Suba. Xafladda musiibada isku beddeshay ayaa ka dhacaysay meel u dhow magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain. Maalintii Axadda, bululeer ee loogu talagalay masraxa ayaa ku qarxay meel u dhow halkii ay taagneed fanaanadda, waxayna isla markiiba gashay koomo. Dhakhaatiirta gurmadka degdega ah ayaa durba isbitaalka ula cararay Mrs. Zayn, halkaasoo ay markii dambe ku geeriyootay. Qiyaastii 1,000 qof ayaa daawanaysay bandhigga ay fanaanadda ka heesaysay oo ka socday magaalada Las Berlanes oo dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Madrid. Dhegeystayaal, guud ahaan warkii galabnimo ayaa intaa inooga eg. Warka galabnimadan waxaa idiin soo diyaariyey isla markaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdiqafaar Habya. Intaynu ku kulmi doono warka xiga, saaxiibayaal, waa saaxiibkiin Habya oo idinkaga tagaya nabadgelyo.